asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xihan janalkeena. waxaa nagu soo food leh oo maalmaha soo socda aan rajaynaynaa in ay bilaabato bishii karaamada badnayd ee aan wada sugaynay. waa bishii barakada badnayd ee uu alle subxaanahu wa tacaalaa dhexdeeda ugu dambi dhaafayay addoommadiisa mu'miniinta ah. waa bishii uu alle subxaanahu wa tacaalaa dhexdeeda xirxirayay sharta iyo shayaadiintaba. waa bishii naarta albaabadeeda la wada xirxirayay oo sidoo kale jannada albaabadeedana la furayay. waxaan alle subxaanahu wa tacaalaa weydiisanaynaa in ay bishan barakaysan inoo bilaabato innagoo uu alle subxaanahu wa tacaalaa inagu karaameeyey inuu inaga wada tiro dhammaan dunuubteena oo uu xasanaadna inoogu beddelo, si aan bishan khayrka badan uga baxno innagoo dunuubta ka ah sidii aan uga soo baxnay hooyooyinkeena calooshooda. dhammaan bani aadamku waa ay khaldamaan, balse kuwa khaldama waxaa ugu wanaagsan ama ugu khayr badan kuwa ka towbadkeena khaladkooda. allaahumma jacalnaa min altawaabiin wajacalnaa min almutatahhiriin. waxaa dhici karta qofka muslimka ah in uu turunturoodo ama uu khaflad ku dhaco oo kadibna uu macaasi ku dhaco walciyaadu billaah. haddii ay arrintaas ka dhacdana waxaa waajib ku ah in uu u soo degdego istikfaarta iyo in uu ka towbadkeeno wixii uu ku dhacay. wuxuu alle subxaanahu wa tacaalaa qur'aankiisa kariimka ah dhexdiisa ku caddeeyey xaalka qofka muslimka ah markii ay ka dhacaan dunuubta iyo macaasida. wuxuu alle subxaanahu wa tacaalaa suuratu zumar dhexdeeda ku yidhi: qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmati illaah ina allaha yagfiru adunuuba jamiica innahu huwa alghafuuru alraxiim. nebi muxammedow, addoommadayda kuwooda macaasida dhexda baashay ee naftooda ku dulmiyey in ay la yimaadeen wixii ay naftooda ugu yeeraysay ee dunuub ah waxaad ku tidhaahdaa: laa tay-asuu min raxmatillaahi likahrati dunuubikum. dunuubtiina fara badan awgii ha uga quusanina alle subxaanahu wa tacaalaa naxariistiisa. ina allaha yagfiru adunuuba jamiican liman taaba minha warajaca canha mahmaa kaanat. alle subxaanahu wa tacaalaa waa mid u dhaafid badan qof walba oo u toobadkeena oo u soo laabta dunuubtiisa in allaala inta ay la eg tahayba. innahu huwa alghafuuru lidunuubi attaa'ibiina min cibaadih. alle subxaanahu wa tacaalaa waa mid u dhaafid badan addoommadiisa u toobadkeena dunuubtooda, alraxiimu bihim, aadna ugu naxariis badan. acmaasha ugu badan ee qofka muslimka ah looga tiro dunuubtiisa oo albaabada khayrkana loogu furo oo xumaanta iyo sayi'aadkana looga zuuliyo waxaa ka mid ah istikfaarta, ama in aad alle subxaanahu wa tacaalaa dembi dhaaf weydiisato habeen iyo maalin iyo xilli kastaba. waxaa qofka bani aadamka ah istikfaarta uu rabbigiisa u istikfaarsanayo looga tahiriyaa dhammaan dunuubtiisa iyo gafafkiisa. waxaa looga nadiifiyaa sida dharka cad looga nadiifiyo wasakhda. alle subxaanahu wa tacaalaa fadligiisa iyo karaamadiisa iyo naxariistiisa iyo cafiskiisa iyo dembidhaafkiisa awgii. waxaa nebigeena muxamed calayhi salaatu wassalaam ka sugnaatay in uu yidhi: low lam tudnibuu ladahaba allaahu bikum wajaa'a biqowmin yudnibuun fayastakfiruuna fayagfiru lahum. haddii idinku aadan dambaabi lahayn, alle subxaanahu wa tacaalaa waa uu idin tagsiin lahaa, kadibna wuxuu la imaan lahaa qowm kale oo dambaaba oo kadibna alle subxaanahu wa tacaalaa dembidhaaf weydiista oo kadibna uu alle u dembidhaafo subxaanahu wa tacaalaa. من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ذنوبه ولو كان فارا من الزحف.
wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam, qofkii yidhaahda astaqfirullaha alcadiim alladii laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuumu wa atuubu ilayh, waxaa loo dembi dhaafaa dhammaan dunuubtiisa, xitaa haddii uu yahay qof cararay maalinka jihaadka, iyadoo aynu ognahay maalinka ay muslimiinta iyo gaaladu dagaalamayaan in la cararo in ay ka mid tahay dunuubta kuwooda ugu waaweyn. qofka muslimka ah waxaa waajib ku ah inuu alle subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf weydiisto isagoo qalbigiisu uu xaadir yahay oo khushuucna uu ku jiro oo alle isku duleynaya subxaanahu wa tacaala. maxaa yeelay alle subxaanahu wa tacaala waa mid qani ah oo aad u awood badan oo mudan in aan hortiisa isku dullayno oo aan u khuduucno oo aan weydiisanno xaajooyinkeena iyo baahiyaheena iyo inuu inoo dhaafo dunuubteena iyo macaasideena. qofka muslimka ah waxaa waajib ku ah inuu alle subxaanahu wa tacaala ugu toobad keeno dhammaan dunuubtiisa, kuwoodii waaweynaa, kuwii yaryaraa, kuwii la arkayay, kuwii u qarsanaa, kuwii uu kas u sameeyey, kuwii uu khalad u sameeyey, kuwii hore iyo kuwii dambeba. sidoo kale waxaa laga doonayaa inuu ka shallaayo wixii uu horay u soo sameeyey ee dunuub iyo macaasi ah. maxaa yeelay shallaayiddu waxay ka mid tahay shuruudaha towbada saxiixnimadeeda. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala biidnihi albaabada macaasida ka xidha addoonkiisa istikfaarta badan ee mar walba u toobadkeena ee dembidhaafka weydiista. wuxuuna alle subxaanahu wa tacaala u furaa albaabada towbada. alle subxaanahu wa tacaala addoonkiisa in allaala inta ay la eg tahay dunuubtiisa haddii uu ka towbad keeno waa uu ka towbad aqbalaa subxaanahu wa tacaala. sidoo kale acmaasha addoonka dunuubtiisa lagu dhaafo ama looga tirtiro xitaa haddii ay dunuub waaweyn yihiin waxaa ka mid ah in lagu xeel dheeraado ama si fiican loo dhammaystiro weysada. gaar ahaanna in weysada la dhammaystiro xilliyada ay makaarihdu jirto oo aysan naftu jeclayn, iyo socodka loo soconayo masaajidka, iyo sujuudda khushuucda leh ee si dhammaystiran loogu sujuudo alle subxaanahu wa tacaala hortiisa. wuxuu yidhi nabigeena calayhi asalaatu wassalaam, alaa adullukum calaa maa yamxu allaahu bihi alkhataaya wa yarfacu bihi addarajaat. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رواه مسلم. wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam, ma idin tusiyaa wax uu alle subxaanahu wa tacaala idinkaga tirayo gefafkiina oo darajaadkiinana uu sare idinkugu qaadayo. saxaabadii waxay yidhaahdeen, balaa yaa rasuulallah, inoo sheeg rasuulkii ilaahayow. wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam, isbaaqu lwuduu'i cala almakaarih, in aad ku xeel dheeraataan ama aad dhammaystirtaan weysada xilliyada makaarihdu ay jirto ama naftu aysan jeclayn sida xilliyada qabowga oo kale. wa kathratu alkhutaa ila almasaajid, iyo socodka fara badan ee aad u socotaan masaajidda dhankooda. waintidaaru asalaati bacda asalaah, iyo in aad meeshii aad ku tukateen ku sugtaan salaada kale. fadaalikum alribaad, taasina waa ribaad ayuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam. sidoo kale wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, alsalawaatu alkhams waljumcatu ila aljumca waramadaanun ilaa ramadaan mukafaraatun maa baynahun ida jtunibat alkabaa'ir. shanta salaadood iyo jimco ka jimco iyo ramadaan ka ramadaan waxay mukafaraad ama dembidhaaf u yihiin inta u dhaxaysa haddii laga fogaado dembiyada waaweyn ee kabaa'irta ah. اللهم جنبنا الكبائر ما ظهر منها وما بطن. sidoo kale wuxuu yidhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam, man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqaddama min denbih.
qofkii bisha Ramadaan sooma isagoo iimaan leh oo ajar xisaabsanaya waxaa loo dhaafaa wixii horay uu u galay oo dunuub ah. sidoo kale wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, man xaja falam yarfuth walam yafsuq rajaca kamaa waladathu ummuh. qofkii soo xajiya oo soo laabta isagoon macaasi iyo faaxisho iyo xumaan midna aanan samaynin, wuxuu soo laabtaa isagoo ah sidii ay hooyadiisu ku dhashay. sidoo kale wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wassalaam, ittaqi llaaha xaythumaa kunt wattabici sayi'ata alxasanata tamxuhaa wa khaaliqi nnaasa bikhuluqin xasan. alle subxaanahu wa tacaala ka cabso meel allaala meeshii aad joogto, wixii xumaan ah ee kaa dhacana wanaag raaci si aad ugu tirtirto dadkana kula dhaqan wanaagsan. sidoo kale wuxuu alle subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa kariimka ah dhexdiisa ku yidhi, ina alxasanaati yudhibna asayi'aat dhalika dikraa liddaakiriin. xasanaadku ama wanaaggu waxay tirtiraan sayi'aadka ama xumaanta, taasina waxay waano u tahay kuwa kuwaana qaata. waxaa abi umaamata albaahiliyi radiyallahu tacaala canhu wa ardaah laga wariyey in uu yidhi, baynamaa rasuulullahi sallallahu calayhi wasalama fi lmasjid, xilli uu rasuulkii alle sallallahu calayhi wasalama ku sugnaa masaajidka dhexdiisa, wanaxnu qucuudun macahu, oo inaguna aan ag fadhinnay, id jaa'a rajulun faqaal, ayaa nin intuu rasuulka sallallahu calayhi wasalama u yimid ku yidhi, yaa rasuula allah, innii asabtu xaddan fa aqimhu calay. rasuulkii ilaahayow, waxaan ku dhacay xad ka mid ah xuduudaha alleh ee igu oofi. fasakata canhu rasuulullahi sallallahu calayhi wasalam. markaas buu rasuulku ka aamusay sallallahu calayhi wasalam. thumma acaada faqaal, yaa rasuula allah, innii asabtu xaddan fa aqimhu calay. kadibna ninkii ayaa ku laabtay oo rasuulka ku yidhi, rasuulkii ilaahayow, xad ayaan galay ee iga oofi. fasakata canh. kadibna rasuulka ayaa ka aamusay sallallahu calayhi wasalam. wa uqiimat asalaah. kadibna waxaa la aqimay salaada. falama insarafa nabiyullaahi sallallahu calayhi wasalam. markii uu rasuulku salaada ka soo laabtay sallallahu calayhi wasalam, qaala abuu umaama ayaa wuxuu yidhi, fattabaca arajulu rasuula allahi sallallahu calayhi wasalam. ninkii ayaa dabakacay oo raacay rasuulka sallallahu calayhi wasalama xiina insaraf, markii uu laabanayay. waattabactu rasuula allahi sallallahu calayhi wasalam. wuxuu yidhi, aniguna waxaan raacay rasuulka, anduru maa yaruddu cala arajul, anigoo doonaya in aan soo arko ama aan soo dhagaysto waxa uu ugu jawaabayo ninkaani. falaxiqa arajulu rasuula allahi sallallahu calayhi wasalama faqaal. kadibna ninkii ayaa rasuulka ka daba tagay oo ku yidhi, yaa rasuula allah, innii asabtu xaddan fa aqimhu calay. rasuulkii ilaahayow, xad ayaan ku dhacay ama aan galay ee iga oofi. qaala abuu umaama wuxuu yidhi, faqaala lahu rasuulullahi sallallahu calayhi wasalam. wuxuu rasuulku ku yidhi, ara'ayta xiina kharajta min beytik, ka waran markii aad ka soo baxaysay gurigaaga, alaysa qad tawada'ta fa axsanta alwuduu, miyaadan soo weyse qaadanin oo aadan si fiican u weyse qaadanin oo aadan wanaajinin weysada? qaala balaa yaa rasuula allah. ninkii wuxuu yidhi, haa rasuulkii ilaahayow. qaala huma shahidta asalaata macanaa. wuxuu rasuulku ku yidhi, kadibna salaada soo inagalama aadan qayb galin? faqaala nacam. wuxuu ninkii yidhi, haa yaa rasuula allah. faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam. abuu umaama wuxuu yidhi, wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama ninkaas ku yidhi, fa ina allaha qad gafara laka xaddak aw qaala danbak. alle subxaanahu wa tacaala waa uu kuu dhaafay xadkaagii ama dembigaagii. wuxuu alle subxaanahu wa tacaala nabigiisa muxamed calayhi salaatu wassalaam tusiyey in uu u dembi dhaafay ninkaasi.
wuxuu alle subxaanahu wa tacaalaa dembigii weynaa ee uu galay ugu dhaafay salaadiisa awgii. allaahu akbar! maxaa ka waasacnimo badan rabbigeena naxariistiisa subxaanahu wa tacaalaa. maxaase ka badan cafwigiisa iyo dembidhaafkiisa jalla jalaaluh. alle subxaanahu wa tacaalaa wuxuu awoodaa inuu camal yar oo aad qabatay owgii uu kugu dembi dhaafo oo uu kugu geliyo jannadiisa subxaanahu wa tacaalaa. اللهم اجعلنا ممن وسعته رحمتك يا أرحم الراحمين، وثبتنا ربنا على توحيدك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasheena sharafta leh, fadlan ha iloobina muuqaalka inaad like saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. haddii aad inagu cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiiro geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga.